tan iyo bilowgii sanadkan 2025 xadgudubyada ka dhanka carruurta ee ka socda gobolada Darfur ee dalka Suudaan ayaa si aad ah sare ugu kacay. UNICEF waxay xaqiijisay in 110 xadgudub oo la xidhiidha carruurta ay ka dhaceen waqooyiga Darfur oo kaliya, halka dhimashada iyo dhaawaca carruurta guud ahaan dalku ay korodhay 83% marka loo eego rubicii hore ee sanadkii 2024. Al-Fishar oo caasimadda waqooyiga Darfur ayaa noqotay goob dagaal oo si gaar ah ugu yeelatay dhibaato ba'an carruurta. In ka badan 70 carruur ah ayaa lagu dilay ama la dhaawacay 3 bilood ee lasoo dhaafay. Xerada barakacayaasha ee Samsam oo ka mid ah xerooyinka ugu waaweyn Suudaan ayaa si ba'an ay u saamaysay duqaymuhu, taasi oo sababtay 16% dhimashada carruurta Al-Fishar. Waxaa la sheegay in 825 kun oo carruur ah ay ku xayiran Al-Fishar iyo nawaaxigeeda, iyagoo la daalaadhacaya nolol aad u adag oo ay ka mid tahay biyo la'aan, cunto yari iyo burburka adeegyada caafimaadka, sida ay xaqiijisay hay'adda UNICEF. Dagaalada socda ayaa sababay barakaca dad aad u fara badan. 6 toddobaad ee lasoo dhaafay waxa waqooyiga Darfur laga barakiciyey 60 kun oo qof, taasi oo wadarta guud ee barakacayaasha ka dhigaysa 600 kun oo qof tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2024. Qiyaastii 300 kun oo ka mid ah dadkaasi waa carruur. Isku geyn 900 kun oo qof ayaa ku go'doonsan Al-Fishar, halka 750 ay ku xayiran yihiin xerada Samsam. Dagaalada socda ayaa xanibay dhammaanba marinada sahayda iyo gargaarka loo marin lahaa. Cunto yaraanta iyo sicir bararka ayaa sababay in qiimaha cuntadu uu labanlaamo 3 bilood ee lasoo dhaafay, taasi oo dhibaato culus ku keentay qoysaska aan awoodin inay helaan sahayda aasaasiga ah. Waxaa sidoo kale la sheegay in 457 carruur ah ay la daalaadhacayaan nafaqo xumo ba'an, halka 146 ka mid ay qarka u saaran yihiin macaluul aad halis ugu ah. UNICEF waxay ku qiyaasaysaa 500 kun oo carruur ah ay si degdeg ah ugu baahan yihiin kaalmo nafbadbaadin ah. Hay'ado badan oo gargaar ah ayaa isku dayaya in ay sahay gaarsiiyaan dadka ay dhibaatadu saamaysay, balse caqabadaha dhinaca ammaanka ah iyo kooxaha hubaysan ee dagaalamaya ayaa xanibay dadaaladaasi. Dagaalka ka socda Suudaan, gaar ahaan waqooyiga Darfur, wuxuu sababay dhibaato aad u ba'an oo gaar ahaan carruurta saameyn weyn ku yeelatay. Barakaca, macaluusha iyo dhimashada sii kordhaysa ayaa sababi karta haddii gargaar degdeg ah aan la helin in xaaladdu sii cuslaato oo kumanaan carruur ah ay la kulmaan geeri ka dhalata dagaalada, gaajada iyo cudurrada la xidhiidha nafaqa xumada. Xamse Xayd, CBA TV.